Schmeichel oo fariin kulul u diray United. Sesko ma ahan waxa aan u baahnayn. Goolahayii hore ee Manchester United Peter Schmeichel ayaa si weyn ugu yaabay qorshaha suuqa xagaaga ee United, gaar ahaan go'aanka lagu ceyriyay Rasmus Hojlund oo lagu soo iibsaday Benjamin Sesko. Saxiixa Benjamin Sesko wuxuu igu ahaa mid aad u yaab leh, sababtoo ah waxaan horey u haysanay Rasmus Hojlund, kaas oo 2 sano waayay wax caawiya. Waxa uu intaas ku daray kaliya eeg waxa uu hadda ka sameynaya Napoli isagoo la ciyaaraya Kevin De Bruyne iyo Scott McTominay. Waxaan si joogto ah u sheegay 2 sano iyo bar gudeed in Hojlund uu ku noqon doono weeraryahan dhalin kara 25 gool xilli ciyaareedkii, laakiin waxa uu u baahan yahay waqti iyo adkeysi. Schmeichel ayaa dhaleeceeyay maamulka United isagoo sheegay in ay si qaldan mudnaanta u siiyeen saxiixiye aan loo baahnayn isagoo xusay waxaan iska dirnay Hojlund anagoo eegayna tirada goolashiisa xilli ciyaareedkii hore. Dabadeedna waxaan keennay Sesko xilli aan sidoo kale soo qaadanay Matheus Cunha iyo Bryan Mbeumo, kuwaas oo siin lahaa Hojlund adeeg heer sare ah. Waxaan ku bixinay in ka badan 70 milyan Sesko, halka aanan haysan khad dhexe sax ah ama goolhaye lagu kalsoonaan karo. Goolhayihii hore ee United ayaa hadalkiisa ku soo xiray isagoo su'aal ka keenaya go'aamada maamulka suuqa. Maxaan u keennay kooxda qof aanan u baahnayn? Sababtu waa in madaxa suuqa ciyaartooyda uu ka yimid Leipzig, kooxdii hore ee Sesko, wuxuuna doonayay inuu ismuujiyo. Fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, qodobkaasna wuxuu qayb ka ahaa barnaamijkeennii bandhiga ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.